madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dhacday magaalo xebeedka Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. xafladan oo si weyn u soo camareen bulshadeenta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Western Cape ayaa aad loogu taageeray magacaabida madaxweynaha cusub. jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape oo soo qaban qaabisay xafladan ayaa waxaa madasha ka hadlay culamaa u diin, odayaal, aqoon-yahano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. markii xafladu soo idlaatay ayaa waxaa banaanka hore kula hadlay saxaafadda qabanqaabiyaasha xafladda oo ka warbixiyay muhiimadda loo qabtay xafladani. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed cabdi maalin oo loo yaqaan sanka isla markaana xubin ka ah guddiga qabanqaabada caawa xafladdan ballaaran ee halka ka dhacday runtii xafladdan ma aha mid halka lagu soo koobi karo ee caawa halka ka dhacday jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Western Cape Town iyo walaalaheen George nooga yimid waxaan caawa halkan ugu dabaaldegaynay ayaan farxadeena ku muujinaynay madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya ee yeelatay muddo 24 sano ka hor ka bacdi ah سيادرتيد marka waxaan halkan ka salaameynaa oo hambalyo leenahay madaxweynaha cusub Professor Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay wad guuleysatay madaxweyne Ilaahay tabaaraka taala xilka kula qaado Ilaahay baa awood ina siiyay inaan halkan nimaadno Ilaahay baa ina siiyay inaynu ka wada hadalno tahniyad iyo bogaadin iyo soo dhaweyn iyo marxabaysiin aan u sameynayno madaxweynaheena cusub ee noo dhashay Allah xifdiyo madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay Allah xifdiyo hawshan loo doortay ee bulshadiisu ay sida hufan uga dooratay ee uu hormuudka u yahay Professor Maxamed Cusmaan Jawaari oo ahaa gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leenahay Allah barakeeyo waxa way farxad weyn bay tahay gelisay waxaan idin leeyahay jiilka soo koraya oo maanta halkan fadhiya amba dunida daalaxeena joogta Soomaaliya aad ogtiin dhibaatada ku dhacday waxaan leenahay madaxweynahayna iyo xukuumadda hadda uu soo dhisi doono tii ka bixisa dhibaatada aan ku jirno Allah ka dhigo si kastaba ha ahaatee xafladan oo noqonaysa xafladii ugu horeysay ee lagu taageero Professor Xasan Sheekh Maxamuud ee ka dhacda gobolka Western Cape iyo guud ahaan dalkan Koonfur Afrika. Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale, Somali Channel, South Africa.